صدق مشروع أي سومالي سوديسي أيها هرجيسة لقى هرجلينيا قبل كأود الله مركل إلى مشروع سومالي وقلت لك شيء يا الله سيدينيا هي هرجيسة ويديدا أما سومالي ويديدا مرة واحد أنا إلى أنا أقوياء فرحان شامع نورا waxaan leeyahay gobolka awdal Soomaaliland baad tiini ama wixiina doonta ama hadalka iyo dacwada iyo cabashada iska daayay mashaariicda inta leeg sida bareerka ay Soomaaliya soo sheegtay wali haata ilaa xukuumaddu kama jawaabin marka waan ka cambaarayna waan uga soo horjeednaa dan dhalinyarada reer awdal lahayn waxaan aqbalayna ma ahayn adal mashaariicda aad ka fulisay Mowrajax waan ku faraxsanahay waa dalkeenii ha ka fusho ha isku xidhnaa wadanku sidaas la mid ah awdalna waa inay heshaa wixii Soomaaliya ku lahayd dawladda Soomaaliya xalay hadashay waxay sheegtay in mashaariic kala duwan laga fulinayo Hargeysa iyo hareeraheega oo ay ku baxayso lacag 20 milyan sax arintaas sidoo aragtaa arintaasi waxaan u arkaa si khalad oo aad u khaldan sababtoo ah waxaan nahay markii hore waxaad noo sheegteen in Soomaaliland iyo Soomaaliya la kala ilaa mashruucaasi noo kala xidhan yahay mar aliya markay mashruuc ay dano Hargeysa soo galaan waa la fasaxayaa danaha markay danuhu galbeedka Soomaaliland ee Boorama la gaadho ama wixii galbeedka xigana mashruucaasi uu xidhan yahay markay sidaa tahay dee in qarafada loo sinaado wixii halka Ilaahay ka keeno la wada lahaado iyo in wax Soomaaliland la yiraahdo ma jira tiraadaan oo aad magac dhowdaan deenin iyo maaragtay loo xadha lagi labada mid soo galaan leh anigu nimanka Soomaaliland joogay siyaasadda maaragtay dharaar bashaarkay doonaan u gashanaya qodobkaas aan kala hadlayaa de qarafadu aanu bay ugu fiican tahay oo dhanina jaarkaaga wax ka soo gaarsiin baan ku leeyahay mashaariicdii dhawaan ay soo deysay Muqdisho ee u soo deyshay Soomaaliland sida waxaan u arkaa horta mashaariicda faraha badan leh Muqdisho ay u soo deysay Soomaaliland ay ka mid yihiin water supply-ga biyo gelinta ee wasaaradda federaalka ee macdanta iyo biyuhu ay soo deysay ee biyo gelinta mashruuca ee World Bank ku bixiyay ee maanta laga hirgeliyo gobolka Maroodijeex ee Hargeysa iyo wadooyinka saddexda ee isdul maraya Hargeysa loo soo daayay waa mashaariic World Bank ugu talagalay horumarinta urban planning development of Somalia oo qaybteedii ay Hargeysa qaadato Soomaaliya soo deysay saddex mashruuc oo Soomaaliya soo deysay ayaa Hargeysa laga hirgelinaya gobolka awdal la markale ila mashruuc Soomaaliya ugu talagashay ayaa loo sii deynayaa heer Hargeysa way diidaan ama Soomaaliland way diidaa marka waxay aniga ila tahay aniga aqoon farxaan jaamac nuura baqtiga ma cuna fuudkiisan cabaa bal mashaariicda Hargeysa loogu talagalay federaalku soo daayay ee Boorama aan loo ogolay meena qaladahay intii Boorama ayaa ka rabnaa Soomaaliland ee dawladda federaalka ay ku lahayd Soomaaliya ee sida wadooyinka jidadka biyo xidheennada iyo mashaariicda federaalka ee World Bank iyo African Bank Development ay si wada jir u soo deynayaan qaybtii gobolka awdal ku lahaa ayaa si degdeg ah anaguna u rabnaa bismillaahir rahmaanir rahiim kulli horta waxa laga jawaayo waa raayahan weyn sax Soomaaliland waa Soomaaliland sax Soomaaliland maadaama Soomaaliland tahay haddana waan nacabnahay Soomaaliya oo waan arkaysaa Hargeysa kala matalan kuna tusaale soo qaata Hargeysa aad baa looga nacbay mashaariicda ugu badan iyaga qaata waxaan leeyahay gobolka awdal Soomaaliland baad tiini ama wixiina doonta ama hadalka iyo dacwada iyo cabashada iska daayay ya waayo qofka bidaaadmigi dadkan isku reeyma isku mid baan nahay waxaan wada doonaynaa waxay doonayaan waynu doonaynaa xaq baan u leenahay wixiina halka in miiskale noo dhigo xaq baynu leenahay war ama xineeyo soo sarraga oo hadlo shirka raga kaalaya ama hadalkii dacwadii oo hinta iska daayeen la gobolka awdal cid kale ma macnaanay gobolka awdal macnaanay rag baa jooga rag baa ku nool rag baa xiniyahu oo ognahay rag baa dhiig u shoowan ognahay waxa weeyaan gobolka awdal waa gobol jira waa gobol Soomaaliland kamida cadkiisa xaq buu leeyahay hanna yiraahdaan anaga waxba inama hayn war raganimo anaga toos ugu doonaa xamar talaga banay ugu horeyn siyaasi Qaasim soo dhaw maanta bulshada waxaan weydiinaynay ee mashaariic kala duwan bay dawladda Soomaaliya soo bixisay laga fulinayo gudaha Soomaaliland gaar ahaan Hargeysa iyo hareeraheega sidoo aragtaa arinta nuux cusub maanta koran baa loo qaaday way dawladii hore si hoose ayay hawlaha ku soo qaadan jireen mashaariicdaas laakiin maanta waxaad moodaa in si qawan loo soo qaatay oo xukuumadda jaleeceega iyo aad arkayso laakiin waxa la yaab leh waxa haddii iska daa wax kale qof dhaawacan airport Hargeysa in laga qaado Muqdisho la geeyo loo diiday gobolka awdal
xalaaleeyeyna in mashaariic laga soo qaato xukuumadda caalami su'aal saaran tahay mashaariicda intaa leeg waa imse kilomitr oo wadooyina laga bixinaya way badan yihiin mashaariicda intaa leeg sida bareerka ay Soomaaliya soo sheegtay weli haada ilaa xukuumaddu kama ay jawaabin laakiin waxaan weydiinaynaa war goortaan tagayno una ku heshiinadii waxaan u soo dhamaadana malaynayaa goortii tagi lahaa una ku heshiin waa fahmi weli waxaan isla fahmi laanahay Soomaaliyanimadii waxaad arkaysaa wax xaaraan ah haddana xalaal ah laa xawla walaa quwwa waxaasoo kale dee wax loo dul qaadan karo ma ahay xukuumadda maanta talisaay war ummadda ha u sheegtay dee waxaan wuxuu yahay waxaynu ka warqabnaa in dhowaan Israa'iil ay aqoonsatay dal la aqoonsaday yahay haddana dalkaynu ka go'nay baynu weli mashaariic inooga imaanayaan sidaynu maqlayno arrintan sidoo aragtay xildhibaan waxaan dee rajaynayaa in xukuumaddu inooga jawaabto labada afadayadaynu ka haynaa waa la aqoonsadeedan ka haynaa marka ummadda ha u sheegto dee haddaynu dal jiranahay oo la aqoonsaday ummadda ha u kala cadayso dee mashaariicdan cadcadeed xal inaad arkaysa wasiirku akhriyay Soomaaliya ka akhriyay dee ummadda ha u sheegto waxaan wuxuu yahay iyo waxa inagu nahay aqoonsiga ma been buu ahaa ma waa ummadda lagu siixinayo wuxuu ahaa xukuumadda looga rabaa inay ka jawaabto sida ugu dhaqsaabada inay ka jawaabto ay ummadda u sheegto taasana oran lahaa siyaasadu ma waxa diidan tahay mashaariicda kala duwan ee u soo kordhaysa Hargeysa oo ah caasimadeeni si maxaa bal iswaafaji arrintaas ma wax la diidan yahay ma jirto waxa la yiri wixii muuqda macaan waxa la yiri ilka iyo qosol baa la cadeeyay deeyna hala cadeyso xukuumaddu inaynu nahay maamul goboleed kamid ah Soomaaliya ma diidanin waxa Hargeysa soo kordhay Hargeysa caasimadiisa dalka watan walba la aqoonsadaan lahayn in laga dabaaldegayo dabada laga lulay anagu wax horumar oo maxaa laga xumaani inaad maxaa laga xumaan ma wax adigu soo kordhay laga xumaan maaye war waxaan leeyahay dib maamul goboleed nahayna war mashaariicda ka imanaysa hala kala qaato oo reeraynu nahay reeraha loo kala qaato wixii halkan lahaydna hala keeno ya marna waxaad oranaysaa waa xalaal marna waa xaaraan dee labada nabar isqabadsi sida saacada xalaal noqonaysa saacada idinku wax ka soo qaadanaysa bay xalaal noqonaysa Hargeysa la dhisay haddii buur ma xusoo baxna xaraam ay noqonaysa waxaan xasuustaa waqtiga abaaru dhaceen ayaa la yiri waa isku filanahay geeyna wax nooga yimin ma nimanka ilaahay baan ku dhaashay nin dhimanaya gurmadka ugu yimin muqdisho ka hor istaagay maanta anaga mashaariicda intaan nale Hargeysa la keenaya dee isma qabanayso wax isqabanaya ma ahayn iyo dhan isku raacnay weyn reerkan waxaan maalin baan nin yar kaftanayo waxaan ku yiri anaguna maskaxdan ka fikirnaa idinkuna caloosha ka fikirtaan waxaan leeyahay adiga caloosha laga wada fikiranayo si la iskula jaan qaado dee nin maskaxda ka fikiraya caloosha ka fikiraya buliyoos ma raaci karayaan marka waxaan leeyahay war iskula jaan qaado inaan caloosha ka wada fikirnaa arrinta waxaan u arkaa dee gobolkan awdal marka mashruuc laga fulinayo in laga hor yimaado ama laga hor istaago oo si kale u arkaa mashruucyada kale ee Hargeysa iyo Burciye laga fulinayeen la ogolaado waxaan u arkaa dee anigu in gobolka awdal waxba aan loo ogolin Hargeysa mashruucyadaasi Hargeysa waxaan jeedaa Burco oo meelaha loogu nacibay calanka buluuga mashruucyadana way qaataan gobolkan awdal leh mashruuc jira kasto loo soo ogolaado waa kan la hor istaagayo ma garatay annagu waxaan u aragnaa mashruucaas gobolka awdal loo soo ballan qaaday ee la hor istaag ay doonayaan in la hor istaago ma ogolin mar ogolaan doono hadday taasi dhacdana radeen mashruucyadii hore ee Hargeysa ka hirgalay iyo Burco heladee ayaa dib looga noqonayaa ma garatay marka waan ka cambaarayna waan uga soo horjeednaa haddaan dhalinyarta reer awdal nahay waxaan aqbalaynaa ma ahayn sidoo aragtaa mashaariicda laga fulinayo inta u dhaxaysa Hargeysa iyo hareeraheega horta alxamdulillah bismillah alxamdulillah wa salaamu lillaah wa salaatu wa salaamu ala rasuulillaah sallallahu alayhi wasallam horta su'aasha jawaabtaasi waa su'aal fudud aad iyo aad baan ugu faraxsanahay in mashaariic laga fuliyo Hargeysa oo ay wax badan u qabsoomaan sidoo kale waa kuwa inaguna xaqan u leenahay kol haddii mashaariicda Soomaaliya ay ka soo baxayso daarada wax inaga inoo diiday inaga loo fuliyay ma shama taalo maanta wasiirkii hawlaha guud ee Soomaaliya waa nin raawdala halkan waxaan ugu gudbinaynaa haddii codsigii ay dawladda Soomaaliya soo gudbinayso awdal wixii laga qaban lahaa anaga ku soo gudbinay naga qabo oo awdal ku soo dar mashaariicda aad ka fulisay Mowrajah waan ku faraxsanahay waa dalkeenii ha ka fusho ha isku xirmaan wadanku sidaas la mid ah awdalna waa inay heshaa wixii ay Soomaaliya ku lahayd taasaan wadiina wasiirka aad baan ugu faraxsanahay wax fulaan in dawladda Soomaaliya arrinkan qacan bidaxaynaysa in gobolka Soomaaliya oo dhan horta waa masina in markaad saa u eegto qaybtan gobolka awdal
wax mashaariicoo meeshaa markii loogu geeyo loo ogolaadaa ma jiro haddii aad wixii dowladdu markii hore ay xaggan galbeedka ahayd wax mashaariicoo gobolka awdal loo fulin jiray ma jirin iminkii dowladdii waxay tagtay bari wax alla wixii soo baxay ee beri ka yimaada waa loo sii deynayaa wax alla wixii soo baxay gobol galbeedka geeya la yidhaahana biiskaa laska duldhigaya dhaska markaa waxaan u arkaa mashruucaasi inuu khalad yahay ay salaxley iyo hargeysa dhexdeeda laga waxaynaya kii gobolka awdalba lama sii daaye makaan baa la sii daayaa xitaa mas-uuliyiinta gobolka awdal ka soo jeeda waxaa ka shaqaynaya war cambaaraynaya